haddii qof qaangaara la xabiso ama uusan awoodin inuu go'aan saxa ka gaaro naftiisa, markaas wakiilka noqosho ayaa laga maarmaan noqonaysa. Wakiilka waa qof ay maxkamaddu magacowday si uu go'aamo ugu gaaro qofka wakiilku ka yahay. Wakiilku wuxuu noqon karaa sayga, xaaska ama qaraabo. Wuxuu noqon karaa qof kasta xirfad leh, diyaar u ah, awood u leh inuu u dhaqmo wakiil ahaan. Maxkamaddu iyadoo ka duuleysa danta ugu wanaagsan ee qofka wakiilka laga yahay, waxay magacaabi doontaa qofka ay u aragto inuu u qalmo wakiilnimada. Dadka qaar waxay arkaan xubin qoyska in loo magacaabo wakiil ahaan iyo xirfad leh, wakiil gaar ah iyo wakiil dadweyne. Laakiin marka la eego maxkamadda, waxay u aragtaa isku si. Marka ay magacowdo maxkamadda, wakiilka waxaa la siin doonaa awood gaar ah si uu u go'aano ugu gaaro qofka wakiilku ka yahay. Awoodahaas waxaa ka mid ah halka qofku ku noolaanayo, xanaaneynta hantidiisa gaarka ah, saameynta caafimaadka, xirfadda iyo qofka wakiilka ka yahay, codsashada dheefaha dowladda. Awooduhu waxay ku xadidan yihiin waxay maxkamaddu amarto, waxayna ku xirnaan doonaan waxa uu qofku u baahan yahay. Hannaanka wakiilnimadu wuxuu noqon karaa mid adag. Haddii aad su'aalo ka qabto wakiilnimada ama aad doonayso in wakiil laga noqdo qof, waxaa had iyo jeer wanaagsan inaad la tashato qareen.